balaqaadkiisii uu noo fuliyey ee ahaa inuu leerka berbera naga jibinayo madaxweyne balaqaadkayga wuu fulay shirkadiina amarkii way qaadatay leerkii way naga jibisay leerkii waa 0.2 aad baad maasanta madaxweyne cimriga caafimaadka Allah ku dheereeyo maamulka warshada leerka ee magaalada berbera ayaa maanta waxay si rasmi ah u fuliyeen go'aankii madaxweynaha Soomaaliland ee ahaa in leerka magaalada berbera la jibiyo kaasi oo madaxweynuhu ka dhigay 0.2 halka uu markii hore ka ahaa 0.39 go'aanka madaxweynuhu leerkani ku jibiyay ayaa waxa uu daba socday ballanqaad uu sameeyay shacabka magaalada berbera waqtiga uu ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani taasoo ay shacabka magaalada berberana xilligaasi ay si weyn uga codsadeen inuu leerka magaalada berbera uu jibiyo haddii uu soo baxo madaxweynaha ayaa waxa uu ka dhabeeyay ballanqaadkiisaasi sanadadii u dambeeyay shacabka magaalada berbera ayaa waxay si weyn uga cabanayeen qiimaha leerka taasi oo ahaa mid qaali ah marka loo eego xeebtani ay joogaan taasoo ay dadku ay aad u isticmaalaan leerka dadka danyartina ay iska bixin kari waayaan qiimaha leerka ee magaalada berbera qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada berbera oo la hadlay telefishinka Saab ayaa waxay si weyn ugu mahadnaqeen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo sidoo kale maamulka warshada leerka ee magaalada berbera oo iyaguna qaatay amaba aqbalay go'aanka madaxweynaha Soomaaliland aad waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal balaqaadkiisii uu noo fuliyey ee ahaa inuu leerka berbera naga jibinayo madaxweyne balaqaadkayga wuu fulay shirkadiina amarkii way qaadatay leerkii way naga jibisay leerkii waa 0.2 aad baad maasanta madaxweyne cimriga caafimaadka Allah ku dheereeyo insha Allah kii waarna Allah ka dhigo madaxweyne ballanqaadkayga waanu aragnay madaxweyne kugu maalin madaxweyne waxaan hambaliyeynayaa ballanqaadkii madaxweynuhu hore uu ballanqaaday dadweynaha gobolka Saaxil ee ahaa in leerka la jabiyo ayaa maanta ay bilow tahay ballanqaadkii oo dhaboobay waana soo dhaweynaa bulshada reer Berbera madaxweyne waxaan leenahay waa mahadsan tahay ballanqaadkii aad noo qaadana wuu fulay xukuumaddaadana waan baariganaa insha Allah taala shada leerkana ayadana iyo dhammaan maamulkeedana oo mahadnaqanaa sida ay u rumeeyeen ballanqaadyadii ay u ballanqaadeen bulshada gobolka Saaxil leerkii la jibiyay marka aad iyo aad bay dawladdu maasan tahay oo madaxweynuhu maasiyay sida daraadeed waxaan ku hori sidii hore iyo si u dhow maaha marka waxaan ku hori Allah barakeeyo waan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqayaa go'aankii uu ku oroleeyay in uu ka dhabeeyay oo maanta uu leerkii noo jaban yahay sababta tahay haddaan reer Berbera waxaan in badan aan la dhibtoonaynay leerka magaalada Berbera inuu qaali nagu ahaa aan xaafadaha qaar maanta aanay leer shidanin oo guryaha qaabilaa leer yihiin dadka danyarta Berbera leer yihiin talaagad aan shidan karin marxo aan shidan karin laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxaan aad ugu mahadnaqaynaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhabeeyay go'aankii iyo ballanqaadkii noo ballanqaaday sidoo kale waxaan u bogaadinayaa oo mahadiyo halkan uga darayaa maamulka warshada leerka maadaama ay aqbaleen oo fuliyeenna amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo muxuu ahaayeen ku amray in leerka noo jabiyaan marka aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka reer Berbera waxaa maanta aan ku bishaaraysano leer dambe ka caban doono insha Allah warshada leerkana hal talaan siinaya waxay tahay niyo leerka waa la jabiyo maasantiin go'aankii waa qaatay maasantiin laakiin tayada leerka wali waanu ka cabanaynaa rahmaan waxaan anagoo shacabka magaalada reer Berbera oo dhalinyarada reer Berbera waxaan aad ugu mahadnaqaynaa xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro ee leerka Berbera jibisay waanu soo dhaweynaa maamulka warshada leerka waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan yahay hawsha shacabka reer Berbera waxaan sheegayaa leerka waa la jabiyay waxaan leenahay alxamdulillah Cabdirasaaq Qaasim jaamaca telefishinka Saab magaala xeebeedka Berbera